gudoomiyaha golaha shacabka ahna siyaaya xilka madaxweynaha ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya waxayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid tahay xoojinta iyo wada yeelashada xiriirka dhanka baarlamaanada labada dowladood. Wariyana Ibraahim Guule Isxaaq ayaa warkan inoo diyaariyay. mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya. safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya ayaa marka hore gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu soo gaarsiiyay salaan iyo warqad hambalyo oo uga waday gudoomiyaha baarlamaanka dalka Qatar. kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka ayaa safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya uga warbixiyay horumarada kala duwan ee hadda dalka ka socda iyo sida dowladda Soomaaliyeed iyadoo kaashanaysa shacabkeeda ay uga go'an tahay horumarinta dowladnimada Soomaaliya. safiirka Qatar ee Soomaaliya ayaa kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka uga mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan ee uu sameeyay isagoo sheegay in dowladda Qatar ay sii xoojinayso xiriirka wanaagsan ee kala dhaxeeya dowladda Soomaaliyeed. ugu dambeyn kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo safiirka Qatar ee Soomaaliya ayaa isla soo hadal qaaday in xiriir khibrad isweydaarsi uu dhex maro labada baarlamaan si loo xoojiyo wada shaqeynta iyo iskaashiga labada baarlamaan. Ibraahim Guule Isxaaq, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.